Jeeyaankiisa aniga mar walba waan ka maseeri jiray. Xaakinka adiga ayuu ku jecel yahay. Dadka oo idilna adiga ayay ku jecel yihiin. Aniga markii ugu horreysay aan ku arkayay, waxaan arkay inaad tahay qof geesi ah kaasoo dadka badbaadin doono. Anigana maalintaas khiirad ayaa i gashay. Markaana waa markayga. Jeeyaankiisa adiga maxaa sidaan oo idil igu dadaalaysaa? waxaan rabaa inaan mashiinka ku geeyo oo dib u soo dhalatid. Dib u soo dhalasho aniga maxaa waaye waxaan aan dareemayo? Aniga weligeyga ayaa ku riyoon jiray inaan arko hal maalin farxad, laakiin aniga wax kale ma arkin aanan ahayn inaan ahay dawacada shayddaamada. Anigan mar walba riyada waa ku jiri jira oo keliya inay maalin ii rumoobaysan. Aniga waa ku fikiri jiray, laakiin midaaseeti waa riyo oo keliya. nolosha xigto adiga waxaad helaysaa farxad aad u weyn. saaxiibana waa yeelanaysaa, familna waa yeelanaysaa, weliba aabbo ku jecel oona kaa taxadarayo. Ma waxaa rabtaa rajo been ah inaad i geliso? middaani been maahan. Macsalaamo. Jeeyaankiisa mahadsanid. qoftan way iga badbadatay. waa inaan soo afjaraa.
aniga le idili kartaa meehe kuuma ogolaana inaa meeshan ku dubtid marka hore waa inaa adiga ku soo afjaraa dib u soo dhalasho. ha sameynin waxaanoo idin aniga ayaa soo afjaraayo hadda. jooji waxaa samaynaysid dunida iyo dadkeedaba waa inay arkaan saabaa waxay samayn karto. waan idin baabi'inayaa dhammaantiina. maxaa waaye waxaan loo malay inay dheheyga taabanayaan war hawsheeda ayaa ii soo carfoos inaa ku guulaystay sugba ah ma labada irkaaba guduudiye maxaa waaye saxa soo socda sheeko kaleeto waa umaleynaa ayaga ayaa isku keestay dhibkan oo idin ayaga ayaa isku keestay masaakiinta inaa baabi'iyeen ayaga ayaa ka dambeeyey. yaa waay ayaka xaakimiyaasha aniga waxay iga ballan qaadeen in jagala isiin doono aniga boqortooyo noqon doono waana igaaga baxeen ballanta anigana dadkoo idil ayaa baabi'inaya sidaa ku noqon lahaa waxa aan raba aniga inaan noqdo. aniga hadda wax yar ayaa igaaga dhiman hadafkeyga inaan gaaro. markii aan hadafkeyga gaarana shaqada ugu horeeya qabanayo waa inaan soo afjaraa xaakimyaasha. ayaga markaa soo afjarane aniga ayaa maamulka qabanayo wax walbana aniga ayay hoos imaanayaan. dadkoo idinna aniga waa leenayaa dadkiiga hor imaadana ma laga yaabo inaan cafiyo. hoosheeda markaan ku guulaysto wax walba way u dhammaanayaan. markaasna qisadeeda ayaa bilaabanayso aniga ayaa noqonayo. aniga maxaa sameeyaa aniga hoosheeda waan ku guulaystay. reer aakhiraadyaashan iyo